xidmadii abwaan hore xaraf weyn ku sheegay cuduntii dalkaygay xaruntii dadkaygay xidig nuurayaatee xidmadii abwaan hore xaraf weyn ku sheegay cuduntii dalkaygay xaruntii dadkaygay xidig nuur. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتها هو النجدة ونيساي وعد كسر دواتها برنامج كاره واردي كديارنا حافظة دار السلام كم ده حافظها عصبة كسر كورناي حافظها مجرد مقدشة وعي كتها لا دولت كمجرد مقدشة ميل 6 كيلومتر يلا بقول أو متر مجرد مقدشة وشرته وحافظ سلا دارك كرتان لود السيقاب عصرية ولا كان قاضية هنانك عصرية يعني عالمية waxaad dabcan aad daawan doontaan xaafadan iyo qaybaha ay ka kooban tahay iyo adeegyada ay bixiso iyo sidoo kale waraysan la yeelan doono maamulka xaafadan Dar es Salaam barnaamijka anigoo aadan Jaamac Axmed ayaa idin la socodsiin doona saaxiibkay guduudana dhanka kaamirada iyo farsamada ayuu ka saacidi doona daawasho wanaagsan. xidmadii abwaan hore xaraf weyn ku sheegay cuduntii dalkaygay xaruntii dadkaygay xidig nuurayaatee xidmadii abwaan hore xaraf weyn ku sheegay cuduntii dalkaygay xaruntii dadkaygay. wadadan aad arkaysaan waa wada isku xiri doonta xaafadda Dar es Salaam iyo degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir waxaana la rajeynayaa inay wax weyn ka tari doonto ama ay fududayn doonto isu socodka degmada Dar es Salaam ama xaafadda Dar es Salaam ee cusub iyo sidoo kale degmooyinka gobolka Banaadir sidaad arkaysaan waxa la saaray laami qurux badan oo runtii aan rajeynayna inuu wax weyn ka tari doono isu socodka degmooyinka Yaaqshiid ama Daynile iyo isku xiri doona xaafadda Dar es Salaam ee cusub. xaafadda Dar es Salaam waa xaafad cusub oo dhawaan laga hirgeliyay magaalada Muqdisho waxay dhinaca waqooyi kaga beegan tahay garoonka ciyaaraha Stadium Muqdisho ee jidka warshadaha waxayna masaafo ku dhow 8 kilomitir ay banaanka ka tahay magaalada Muqdisho waa deegaan loo dhisay qaab casri ah oo lagu tilmaami karo nooceeda tii ugu horeysay ee magaalada ama dalka laga hirgeliyo deegaankan cusub ayaa waxyaalaha muhiimada dheeriga ah u sii yeelaya waxaa kamid ah qaabka loo naqshadeeyay goobta oo istaraatiiji ah iyo ishaybsiga dadka ku noolaan doona booqashaan ku tagnay xaafadan cusub oo daaranayd barnaamijkan ka diyaarinay ayaa markaan marano degmada Yaaqshiid waxaan cagta saarnay laami cusub oo isku xiri doona xaafadda Dar es Salaam iyo degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir
inkastoo qaybo ka mid ah laamiga uu dhismihiisu socday. laamigan ayaa sida aad daawanaysaan waxa uu yahay mid cusub, waxaana markaaad ku socdaalaysa aad dareemaysaa safar aad u wanaagsan. wuxuuna laamigan cusub sahlayaa isu socodka xaafadan iyo degmooyinka kale gobolka Banaadir. waxyaalaha sida gaarka kuu soo jiidanaya ayaa waxaa ka mid ah in laamigan sidan u dheer oo la dhihi karo waxa uu ku dhow yahay laamiga ay dowladda Turkigu saartay jidka Maka al-Mukarrama inay hirgelisay shirkad maxalli ah oo ah bangiga Salaam. ayna muujinaysaa in shirkadaha gaarka loo leeyahay ay fulin karaan mashaariic sidan u weyn. waxaa sidoo kale aad ogaanaysaa in jidadka magaalada oo dhan ama badiba laamigan la saari karo oo weliba shirkadaha maxalliga ay fulin karaan waa haddii dadku ay ku wada baraarugsan yihiin adeegyada danta guud. laamigan ayaa si weyn ugu faa'iideeyay dadka boosaska ama dhulka ku lahaa deegaankan oo qiimahoodu kor u kacay. halkan aan taaganahay waa argada laga galo xaafadda Daarasalaam ee duleedka magaalada Muqdisho. dabcan waxaa idin muuqda magaaladii xaafadda Daarasalaam ayaa halkan idin ka muuqda. xaafadan guda geli doonaa balse aan idinku soo gudbino muuqaal dhammaystiran oo ku saabsan xaafadan iyo balqaabka ay u dhisan tahay. sidoo kale aad aragtaan laami cusub oo xaafadda isaguna soo galo oo ilaa iyo magaalada Muqdisho xiriirsan. marka waxaan idin soo gudbin doonaa حفظتي مدينيو حراني يرير هودن حتى اللي ذا قروحيو عمر بلي كاران. waxaan sida aad aragtaan hadda galnay xaafadda Daarusalaam. waxaana baarnay masjid jaamica xaafaddu leedahay oo markaasi salaadii jimcaha lagu jiray. dad aad u tiro badan ayaa ku tukanayay masjidka, waxaana sida aad daawanaysaan uu leeyahay baakin waasic ah oo baabuur badan la dhigan karo. intaasi kadib waxaan gudagalnay inaan booqano goobaha diyaarsan ee hadda ay xaafaddu leedahay. حرت الشيخ ويليو وردنا بدلو حري حوتاك سيدكيو حرير يا هروا السبضان عرقاب مركن صو حسوس طبا حتى يجريسي كسيدكيو حرير يا هروا السبضان عرقاب مركن صو حسوس طبا حتى يجريسي xaafadan ayaa waxaa ka dhisan dhismooyin aad u qurux badan oo isugu jira dabaqyo iyo fiilooyin qaarkood la goglay. xaafadda ayaa leh adeegyada nololeed iyo khidmado dhammaystiran sida koronto iyo biyo joogto ah, masjid jaamica, isbitaal weyn, goobo laga dukaamaysto, iskuulo isugu jira hoose, dhexe iyo sare. waxaa kaloo intaas dheer oo ay xaafaddu leedahay garoomada lagu ciyaaro, goobaha madadaalada carruurta, jardiinooyinka iyo jidada aad loo qurxiyey. ديباتيو وشدرن بكاي وشدرن بكاي حاري عمري إلهي رويو ديباتيو وشدرن بكاي وشدرن بكاي حمري السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا المقعد
سرفت كريم saar xagaad ka timid dadka meesha degan baad ka mid tahay mise waa soo dalxiis tagtay dalxiis xaafadee ka timid holodaag waayahay maxaad dareemaysaa markaad halkan timid nashaad badan waa tahay maxaa ka mid ah waxyaalaha aad ka heshay halkan ka yaalla waxay cajab geliyo haye maxaa ka mid ah waxyaalaha ku cajab geliyey iyo fooga farasa waayahay iyo waxa la mid ah waayahay dareenkaagu waa aad buu fiican yahay soma oo shidan yahay way aad ma santaade haye adeer adiga magacaaga marabto adeer way gadaftay magacaaga ana ku haynay beela maxamed xuseen way leila dadka halkan degan baad ka mid tahay mise waxa weeyaan waa soo dalxiis tagtay oo soo dalxiistay xaafadee ka timid على عدال هرواقي هرواقي ka timid way waa sida dareenkaaga وفي عين درينك ayo ku imanaya salaamu calaykum وعليكم السلام adeer magacaaga بشار أحمد عيسى bishaar xagee ka timid عرفات carafaad baad ka timid waaya maxaad u timid halkan إنا ويفو بيا كعيار waayahay maxaa ku cajab geliyey markii intaad halkan timid بيا biyaha ku cajab geliyey waayahay maxaad dhihi lahayd dhalinyarta kale ee adiga kula midka ah ee xaafadiin iyo kale وهم بلينا waaya magacaaga عبدالقادر عبد الرحمن جامع cabdiqaadir xaafadee ka timid دقمدي أخشيت ee magaalada muqdisho maxaad soo raacday waxaan soo raacay baabuur baa lagu keenay waayahay waxyaalaha ku cajab geliyey maxaa ka mid ah marka halkan waxay cajab geliyey meesha biyaha lagu dabaalanayo wiifowga iyo meesha ciyaalka ku ciyaaraan gaadiidka bielka loo yaqaano ayaa durba isaga shaqo bilaabay xaafadan cusub iyo magaalada qaybaheeda kale waxayna ii sheegeen darawallada gaadiidku in xaafadan ay degmooyinka kale uga fiican tahay jidadka oo ah mid aada u wanaagsan qaar ka mid ah gaadiidleyda ayaan kala sheekaysay sida ay shaqadoodu tahay asalaamu calaykum عليك السلام walaal magacaaga عبد أحمد waxaad ka mid tahay caasiyaasha ka dhex shaqaysta xaafadda daarasalaam iyo magaalada muqdisho qaybeeda kale إلا ميزانك ilaa miisaanka ilaa daarasalaam isaga shaqaysa ها waayahay waa sidee shaqadu واسكي عادي haye qiimaha ka waran aad ku qaadaan daarasalaam ilaa iyo miisaanka dhuxusha ما واسكي شنك كل انت haye dadka see inta badan u heshaan ma suuq la'aan baa idinku dhacda mise dadka inta badan waa yimaadaan meesha واسكي عادي واي ماذا waayahay marka aad shaqada marka aad bay u fiican tahay عادي وفي عنتها صح waa halkan ilaa iyo miisaanka dhuxusha waa 5 واشنكون ها aad baad maasan ugu dambeyntii madaxa suuqgeynta daarusalaam village fuaad axmed warsame ayaan ka waraystay mashruucan iyo halka uu marayo xidmadii abwaan hore xaraf weyn ku sheegay cuduntii dalkaygay xaruntii dadkaygay xidig nuurayaatee xidmadii abwaan hore xaraf weyn ku sheegay cuduntii dalkaygay xaruntii dadkaygay xidig nuur waa tahay daawadayaal haddana waxaan la taagannahay sidaad aragtaan fuaad axmed warsame oo ah madaxa suuqgeynta xaafadan daarasalaam village cusub aad daawanayseen fuaad kusoo dhawo telefishinka Somali News marka xigtana bal waxaad sharaxaad naga siisaa xaafadan iyo ujeedooyinkii loo aasaasay aad u maasantihiin Somali News TV-ga booqashada aan soo booqateen Daarusalaam City xaafadda Daarusalaam City waa xaafad cusub oo laga hirgeliyay magaalada Muqdisho xaafadda markii aan tilmaamo waxay isbartiibada ama istaadi Muqdisho ka xigtaa dhanka waqooyi 7 kilomitir ay u jirtaa isbartiibada waxaana taga jid laami ah inaga u gudbi doona jidka iyo bal dadku sida ay ku iman karaan marka hore xaafadan goormaan la sameeyay dhismaheeda la bilaabo dhismaha waxaan bilawnay sanad ka hor aan bilawnay qorshahana qorshaysan wuxuu socon doonaa 3 sano qorshaha koowaad oo aan dhisaynana guryaha dhisayna waxay isugu jiraan guryo dabaqyo ah iyo filooyin sida aragtaan laamiga qaybta bari dabaqyada u tala galnay oo dhowr nooc kala ah sida soo arteen muuqaaladoodii ayagoo gogolan guryihii gurigan dabaqa hadda aragteen wuxuu ka kooban yahay 4 qol oo hurdo ah fadhi iyo khado jiko 4 musqulood iyo 2 qol iyo musqul service ah marka guryahan aragnay dabaqyada iyo filooyinka ka kooban masaambalo hadda loogu tala galay mise waa guryo durba waalid oo dadku way
kiraysanayaan ama degaya qaarkood oo ku aragteen dad baa dalbaday oo loo diyaariyey qaarkoodna waa sanballo oo waxa waaye guriyii sanbalka ah qaarkoodna waa la dalbaday waa la diyaariyey kuwana dhismoodu u socdaa deer xaafaddu ma kooban tahay oo deyr ma la mariyey mise waa weli way bannaan tahay oo lama soo koobin weli dhismihiyaa socda dhismaha markuu dhammaado ayaa laamiyada la leexinayo iyo jardiinooyinka iyo community gateska iyo security waxa dhan markaas ay imaanayaan markii xaafadda ay dhammaato dhismaheeda construction dhammaado waya markaan sidaan arki karno waxaa jira laami dheer oo cusub oo isku xidhaya qaybihii kale magaalada laamigan ma idinkaa sameeyey mise waa kii magaalada ka socday ee dawladdu dhis laamigan waxaa sameeyey Salaam Somali Bank waan Dar es Salaam laamiga Dar es Salaam ayuu yimid xaafadda waxa mashruucan maalgelinaya horta waa Salaam Somali Bank company construction ka ah waa Al Buruj Construction company laamiga dhisay oo contractiga lagu siiyay company Soomaaliyeed weey oo Kulmiye General Service ah ayaa laamiga dhisaya waxaana contractiga siiyay company Al Buruj Construction company Soomaaliya qaatay qandaraaskan oo dhisayba kulli company dhisaya waa Soomaali waxaan aragnaa dad aad u fara badan oo xaafadda imanaya oo xaafadaha magaalada Muqdisho ka imanaya dadkan ma soo dalxiis tageen mise qaarkood waxay rabaan inay gataan oo waxba idinka gataan dadka dhowr nooc isugu jiraan dad dalxiis u imaanaya waxaan sameeynay goobiyo caruurta lagu madadaalinayay dadka qaarkood information bay raadinayaan dadka qaarkoodna waxbay select gareynayaan oo waxay u imaanayaan in maalinta jimcaha qaasatan waxay u imaanayaan dadka maalmaha kale shaqay leeyihiin in meesha design ka socda guryaha ka socda isbedel ka socda inay go'aan ku qaataan dadka qaarkood information dadkooda dibadda ku jiray gaarsiinayaan hadaad markaa dadka aad u sharaxdo adeegyada bulshada ma laga heli karaa meesha waa su'aal aad u fiican marka hore waxaan ka bilaabnay dhismaha waxaan ka bilaabnay adeega aasaasiga ah waxaan ka bilaabnay ceelashii wadadii goobihii waxbarashada goobihii caafimaadka suuqii weynaa marka hore waxaan ka bilaabnay dhismaha haddii aad dhisto 100 guri oo aadan adeega aasaasiga aad dhisin wax deegi kara ma lahan laakiin haddii adeega aasaasiga uu ku dhameystiran yahay hadda 2 guri dhisto waa la degayaa marka already waxaan dhigi karnaa phase koowaad uu noo dhamaaday adeega bulshada dhanka amniga oo kale ka waran xaafadda iyo amnigeeda iyo sugideeda iyo ma jiraan ciidan amni oo xaafadda ilaaliya horta anaga Dar es Salaam waxaan leenahay security noo qaas ah oo company baan nahay security noo sharciyeysan oo qaas ayaan leenahay oo ammaanka ilaaliya xaafaduna waa iska ammaan habeen iyo maalin waa shaqeynaa waxa qabada ay wax noo istaagan ma jiraan waxyaalaha aad rajaynaysaan xaafaddan ay ku soo kordhisaan ama nooca aad rabtaan in xaafaddan ay mustaqbalka noqoto hatta dadka u yara sharax xaafaddan waxaan rabnaa inay ka duwnaato xaafadihii magaalada Muqdisho ay noqoto xaafad design-keeda oo yahay standard adeegeeda oo yahay adeeg standard ah ay yahay macnaha meel ka qurux badan magaalada Muqdisho haddii aan lahayd jardiinooyinka haddii aan lahayd goobaha kale oo bilicda leh haddii aan lahayd hawada iyo saxada wanaagsan ee deegaankan saan rajaynayno dadku laamigan maraa xaafadda aad bay u sahlan tahay hadda dadku inay xaafadihii guud ahaan magaalada Muqdisho dhan ay isaga socdaan Soomaa waxba kama duwana xaafadihii kale magaalada ku yaallay way ka sahlan tahay maadaama jid laamiga la sameeyay way ka sahlan tahay inaad magaalada meel kale ka aado in halkaan soo aado halkaan soo aado sahlan xidmadii abwaan hore xaraf weyn ku sheegay halku dhiga Daarusalaam waa gado deegaan ee hagadan guri oo loola jeedo inuu qofku heli karo deegaan waasac ah oo wixii uu doonayo uu ka samaysan karo duntii dalkayga xaruntii dadkayga xidig nuurayaate xidmadii abwaan hore xaraf weyn ku sheegay duntii dalkayga